Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka. Waxaynu idiin soo gudbinaynaa Turkiga oo qaaday tallaabo la yaab leh. Haddaba maxay tahay tallaabadaas? Een, Faahfaahin ayaan idin siin doonaa. Muxuu yahay wiilka Soomaaliga ah ee lagu xiray waddanka Turkiga iyo sabab la yaab leh oo loo xiray oo ku saabsan arrinta markabka ee markaasi Puntland ay dhowaan qabatay ee markabka lagu magacaabo Seawall. Haddaba wiilkan waxaa dhalay mas'uul sare oo Puntland markaasi jaga ka hayo. Haddaba waxaan idiin faahfaahin doonaa sida wiilkan Soomaaliga ah loo xiray isla markaana dhacdadiisa loola xiriiriyey markabka Puntland dhowaan ay qabatay. Waa hagaag. Marka koowaad soo dhawow. Muuqaalkan like saar waxay naga saacidaysaa muuqaalka markaad like saarto in meel fog uu gaaro. Waa tahay. Dalka Turkiga waxaa lagu xiray Maxamed Cabdimajiid Samatar. Waa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo halkaa waxbarasho u joogay. Wiilkan maxaa loo xiray? Waa su'aal isweydiinaysaan oo qof walba isweydiinayo. Wiilka isagu wax dembi ah oo hadda lagu haysto ama fal dembiyeed uu gacanta kula jiray ma jirin. Balse wararku waxa ay sheegayaan in wiilkan loo xiray hal sabab darteed oo ah markabka Puntland ay dhowaan ka qabatay xeebaheeda oo lagu magacaabo Seawall. Markabkaas oo Turkiga markaas u rarnaa oo hub saarnaa una waday magaalada Muqdisho. Haddaba arrinta cajiibka ah ayaa waxay tahay sida dowladda Turkiga ay tallaabo degdeg ah u qaaday si ay uga jawaabto afduubkii Puntland ay u geysatay markabkii u socday dowladda Soomaaliya. Wiilkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdimajiid Samatar waxaa dhalay agaasimaha wasaaradda dekedaha ee Puntland. Waxaa marka xarigiisa lala xiriiriyey qabashada markabka ee markaasi Puntland dhowaan ay qabatay ee Seawall. Sidoo kalena u rarnaa xarunta markaas Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waa yahay. Haddaba waxaa la isweydiinayaa sidee marka Turkiga ugu sahlanaatay in arrintan uu si degdeg ah uga falceliyo uuna u qaado tallaabo lama filaan ah isaga oo markaa xabsiga u taxaabay wiil uu dhalay mas'uul jaga sare ka haya Puntland isla markaana ay aad isugu dhow yihiin oo asxaab dhow ay yihiin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni. Waxaana loo xaqiijiyey in Maxamed Cabdisamed in ay gurigiisa kala baxeen oo ay kaxaysteen nabad sugidda Turkiga. Magaalada Istanbul ayay markaa ku xireen saan xogta ku helno. Sababta loo xiray waxay tahay keligiis maaha. Waxaa la ugaarsanayaa cid kaste oo markaa lagu helo in ay la shaqeeyaan madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni maamulkiisa. Oo waxay leeyihiin annaga markab ayaana laga afduubtay u socday xarunteennii magaalada Muqdisho ee Turkisom. Sidaa darteed cid kasta oo xiriir la leh Siciid Deni iyo maamulkiisa innagana waan afduubanaynaa. Waa yahay. Haddaba marka haddii ay arrin halkaa joogto oo la is ugaarsanayo oo shakhsiyaadkii Puntland jagada ka hayay ubadkoodii la xiro, Puntland maxay ku jawaabi doontaa? Markabka ma sii dayn doontaa? Ma ku adkaysan doontaa? Waa su'aalo jawaab u baahan. Balse hadda arrintii weji kale ayay yeelatay oo Turkidii waxay leeyihiin annagana Puntland wixii halkan ka joogo ama maamulka Puntland la shaqeeyo xabsigaan ku gureynaa. Turkiga hadda hawshiisa waxay maraysaa qaniya kaa fujisa. Waxayna u muuqataa in ay jawaab u tahay markabka ay Puntland markaa afduubatay.
waan arki doonnaa wixii faahfaahina ee ku soo kordho iyo jawaabta Puntland ay arrintaa ay ka bixiso. Balse hadda waxaan xaqiijinay in xabsiga markaasi loo taxaabay Maxamed Cabdimajiid Samatar, isla markaana uu dhalay Cabdimajiid Samatar Jaafaan, oo ah agaasimaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Puntland. Haddaba haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan like ha ka hilmaamin. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe ka taabo si aan u gaarno 2,000. Waa mahadsantihiin.